السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تقاليق سو دوادا waxaanu ka hadlaynaa maxaad ka ogtahay xaaladda caafimaad ee cabdijaamac caabi cabdiqaboojiye fanaankii wadanigii lajanka ahaa fanaankii weynaa allaha caafiyey muddooyinkii u dambeysay waxaa aada iyo aada u xanuunsanayay fanaanka cabdijaamac caabi qaboojiye kadib markii uu haleelay coronavirus kadib markuu soo duubay cod fanaanku codkaasi oo ku sheegayo inay tahay saacadiisii ugu dambeysay isla markaana looga xirxiray oo uu rajeynayo in maanta maalintiisii tahay balse intii ka dambeysay caafimaadkiisu wuu fiicnaa waanu kasoo reenayay laakiin muddooyinkii u dambeysay waxaa dhacday inuu aada iyo aada uga soo diray oo xaaladiisu gaadhay xaalad aada u siriyoosa ama aada u khatar badan waxaa keliyata ee aan u duubayaa fideogan waxa ay tahay ummadda soomaaliyeed ummadda muslimiinta in ay si niyaa oo degdega inta fideoga arki doontaa ay ugu soo dacayso maantadan oo aan la xidhiidhay dadka ugu dhodhow waxay ii sheegeen inuu fanaankaasi aada u xanuunsanayo isla markaana aan wax raja oo saasi fiican lagaba lahayn allaha caafiyo kana waa loo sameyn yahay balse ducadu waa muhiim fanaankeenna qaaliga ahaa waxaynu ka codsannaa ummadda muslimiinta inay si niya ugu soo duceeyaan kulanto dambe bashar jeesto